caruurta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na siiyey waa nicma. nicmadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu doonuu siiyaa, cidduu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala ma siiyo. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay addoommadiisa qaarna inuu wiilo siiyo, qaarna gabdho siiyo, qaarna iskugu daro. qaar addoommada ka midana alla uu ka dhigo kuwaan ilmo lahayn. intaba waa yani xikmad ilaahay subxaanahu wa tacaala ay rabbi qadartii wey. qofkii marka ilaahay owlaad siiyo, owlaadu waa nicma, isla markaana waa imtixaan, waana amaana ilaahay kuu dhiibay subxaanahu wa tacaala. amaanadaasina waa lagugula xisaabtamayaa oo maalinta qiyaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kugula xisaabtamaya. fi xadiidi ibni cumar nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih. qof walboo idinka mida waa raaci, qof walboo idinka midana wixii la raaciyey waa la weydiinayaa maalinta qiyaama. aabuhu waa raaci, waa mas-uul, wuxuu mas-uul ka yahay qoyskiisa iyo caruurtiisa, maalinta qiyaamana waa la weydiinayaa. hooyadu waa mas-uuliyad bay haysaa, waxay mas-uul ka tahay gurigeeda, caruurteeda markuu aabbuhu ka maqan yahay, ayadana waa la weydiinayaa maalinta qiyaama. wuxuu nabigu kusoo khatimay sala allahu calayh wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. kulligiin raaci baa tiin, qof walba ka mida, qof walbana wixii la raaciyey waa la weydiinayaa maalinta qiyaama. horta marka koowaad waxaa la rabaa inay aabbayaasha iyo hooyooyinku fahmaan caruurta in mas-uuliyad weyn ay naga saaran tahay, aakhirana nala weydiin doono. waalidiinta soomaalidu in badan way sahladaan mas-uuliyaddaasi. ilmaha waxaa aada looga fikiraa noloshooda. aabbo wuxuu aada ugu dadaalayaa biilka reerka, laakiin waxaa laga yaabaa tarbiyada carruurta inuusan ka fakirin in badan. hooyadu mas-uuliyadda guriga ama carruurta ka saaran in badan waxaa laga yaabaa inaysan ku xisaabtamin. keliya cunugu ma caafimaad qabaa, saaka ma quraacday, maanta ma qadeeyey, iskuulkii ma aaday, jaamacaddii maadiga ahayd ma xaadiray, waxyaaba noocaasaa laga fiiriyaa. mas-uuliyadduna intaa way ka ballaarantaa. tarbiyada carruurta walaalayaal waa arrin aada iyo aada ambiyadu ay ugu dadaali jireen calayhim asalaatu wassalaam. in carruurta tarbiyadooda lagu dadaalo, laga warqabo, waa dhaqankii ambiyada salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam iyo nabiyullaahi yacquub labadaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay inay carruurtooda u dardaarmeen. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. sidaasay caruurta u dardaarmeen. waxay yidhaahdeen caruurtayni wiilashayniyo ha dhimanina, ilaahay diin buu idiin doortay, ha dhimanina adinkoon muslimiin ahayn. falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. waa dardaaro wey, waa dadaal iyo tarbiyo wanaagsan ay kula dadaalayeen caruurtooda ambiyadu. waxaa ka mid ahaa dadaalkii ambiyada iyo tarbiyadii ambiyada carruurtooda ay tarbiyeyn jireen inay imtixaamaan carruurta. maanta carruurteena in badan ma imtixaamo. laguma imtixaamo waxyaabaha diinka ku saabsan, laguma imtixaamo caqiidada iyo tawxiidka. tawxiidka sheikhu ka hadlay hadda ahmiyaddiisa. carruurteenna meesha ay marayaan, waxay aaminsan yihiin, cunugu wuxuu caqiidaysan yahay inuu waalidka la socdaa la rabo. allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi fi kitaabihi اlkariim am kuntum shuhadaءa id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi qaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun. allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi ma waxaad xaadir ahaydeen waqtigii geeridu usoo xaadirtay yacquub markuu carruurtiisa ku yidhi maa tacbuduuna min bacdii, carruurtayga maxaad caabudaysaan aniga gadaashay? imtixaankaas fiiriyo su-aashaas. haddaan dhinto maxaad caabudaysaan? markaasay yidhahdeen waxaan caabudaynaa ilaaha aada caabuddo adiga, iyo ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ilaaha ay caabudayaan ayaan annaguna caabudaynaa.
إله واحدا عابدينا ونحن له مسلمون امتحانك ويكو ليست ويلا شاس ويكو جوابين توحيد هي عقيدة وناسة والد وحل الرباء إن اعتقادك عرورته ذي آمن سيهين أي كور قبان مسؤولية صارنا إلى كميتا وأنا واحد أقومهم سوى عقيدة هي توحيدك إلا الربو المها إن لقد لسه ربي قد وحره سبحانه وتعالى طاعة عباد إلهي سبحانه وتعالى للتوجيه وحيابها أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وكشير في كتابه الكريم إن كل ذلك جلين عرور تودا وحكم إلى صلاة إن عرور تودا صلاة فران ما أنت إن بلان أو عرورته إن كم إذا وحلا جاي أبا إني سنتكن بريهنا إنه جوجان أو حافظه وكنه ليه أو وحكا عنايو أو ما أردت وحور رمضان رسينايو صلاة إنه سندنين والد كنا أوسن أوجين عنق إنه سنتكن waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah aabayaasha qaar kamid ah waxay ku dadaalaan masaajidka inay soo xaadiraan laakiin wiilashiisu kuna ma dadaalo inay la soo xaadiraan wiilku waxa laga yaabaa inuu banaanka ku ciyaarayo salaadina uusan joogin waxa suurtagal ah aabuhu inuu cunuga ka soo tago salaada subax soo hurdaaya inuu ka soo tago asigana jamaacada soo xaadiro 15 jir iyo 20 jirna guriga u jiifo aaway mas'uuliyadda aabaha saarnayd naftiisa kaliya miyuu mas'uul ka yahay naftiisa kaliya mas'uul kama aha reerka iyo qoyska dhan mas'uul uu ka yahay Allah subhanahu wa ta'ala asoo ka qisoonay nabiyullah Ismaaciil alayhi salatu wassalaam wa amaanaya wuxuu yiri wadhkur fil kitabi Ismaaciil innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salat waz zakah وكان عند ربه مرضيا نبي الله إسماعيل وهو مد أهل كيسة فر صلاة إلهي وكو أمانة يا سبحانه وتعالى إنه قيس كيسة غير كيسة صلاة فريجة نبي الله أمره صلى الله عليه وسلم إلهي با أمره وأمر أهلك بالصلاة نبي محمد غير كاغا صلاة فرض الله سبحانه وتعالى وليه رسولك صلى الله عليه وسلم أمدي سأيو فري إني عرورته صلاة فرام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 عرورتنا صلاة فرا مركي تضوسنا جيران أمرك أمروا أولادكم وحكوا جهنيه والدك ولذلك علماء وحي هذا والدك وواجب إن عرورته صلاة فرا لكن عرورته أيضا ولما كان جارين وصلاة واجبكم هاي شيء وحال الربائل وتربية وانت يريرين وتربية صلاة عرورتنا أمرا markay 7 sano jiraan ku garaaca salaada markay 10 sano jiraan 7 sano sida qaalibka waa sinu tamyiz inta badan cunugu wuxuu mumayyiz ku noqdaa wax ku kala sooca da'da 7 sano markuu gaaro sida badan way ka yarna way dhacdaa inuu tamyiizka ku gaaro nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay markay 7 gaaraan salaada amra waxa inaad tiraahdo tuko inaad tiraahdo waxa ka horeeya inaad salaadi barto oo sidii loo tukalaha ilmaha la baro oo waxyaabaha akhrin lahaayeen la baro hada 7 sano cunug jiro tukanayo waa lagu yariya in badan oo kamid ah waalidiintu ma daneeyaan in salaada iyo cibaadada la baro nabi wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam 7 sano ilmuhu haday gaaraan in salaada la baro 10 sano markuu gaaro waa in lagu garaaca salaada waa in lagu amro lagu qasbo inuu tukado oo waalidku aysan aqbalin cunug 10 sano iyo wixii ka weyn jira oo salaad la'aan inuu guriga u joogo tarbiyada wanaagsan ee anbiyada calayhi salaatu wasalaam caruurtooda ay fari jireen ayayna ka mid tahay luqmaanul hakiim wiilkiisa asoo u dardaarmaya wuxuu uga digay shirkiga salaadana wuxuu yaani waxyaabo badan oo aadaaba ayuu wiilkiisa u dardaarmay يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وعيرويل كيو صلاة أوك سوما جل صلاة بمفرية يا بني أقم الصلاة وانا غفر حمان تنرد وحي كسو غارو دباتنا كسبر أو كدول قاد dadkii marka anbiyada ugu horeeyaan iyo dadka saalixiinta ah waxay caruurtooda mar walba kula dadaali jireen tarbiyo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan ay ku barbaaraan walaalayaal markii laga hadlayo tarbiyatul awlaad waxa la rabaa tarbiyatul awlaad kama bilaabato ilmuhu markay dhashaan kama bilaabato
tarbiyada caruurta waa inay ka bilaabato marka koowaadba ikhtiyaaru zawjati saalixa. ninkii raba inuu guursado tarbiyada halka inuu kasoo bilaabaa la rabaa, maadaama guur dibadiyo uu rajaynayo gabadha uu guursanayay asiga in ilaahay caruur kala siiyo, gabadhaasi marka hore inay noqoto gabar wanaagsan. aasaaska koowaad waa inuu saxo. maxaa yeelay hadday hooyadu tahay hooyo khariban, ilmo khariban ay dhalaysaa sida qaalibka. ilaan hooyadu waa madrasadii guriga. ilmuhu meeshay ku barbaaraan qofka maanta oo dhan la jooga ee barbaarinaya ee ka warqaba waa hooyada wey. lidaalika nabigu wuxuu booriyey sala allahu calayhi wasalam in lagu dadaalo gabdhaha wanaagsan ee ahlu diinka in la guursado. fii xadiidi abi hurayra nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay waxyaabaha lagu doorto gabdhaha markii la guursanayo. nin wuxuu ku doortaa buu yidhi maal, mid wuxuu ku doortaa qurux oo ku guursadaa, mid wuxuu ku doortaa inay dad wanaagsan gabadhii ka soo jeedo, midna wuxuu ku doortaa diin. afarta nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam hal mid ayuu booriyey in la qaato. fadfar bidaati diin taribad yamiinuk, war ku dadaal oo qabsoo ku dhag buu yidhi midda diinta u saaxiibka, midigtaadu ha boorowday. waa boorin iyo dhiiragelin wey. rasuulku sala allahu alay slam wuxuu leeyahay hadday gabarna qurux lagu doorto, midna diin lagu dooranayo, midna lagu dooranayo maal, midna daday ka dhalatay, afartaa haddii la isku kaa barbar dhigo midda diinta u saaxiibkaa dooro. maanta in badan ragga quruxay wax ku raadiyaan, oo markuu rabo inuu guursado waxa koowaadee kusoo dhacaysa waa gabar sifaad lahoo muuqaalkeedu ka fakeraa keliya. waxaa suurtagala haddii gabar qurxoo loo sheego inuusan fiirin gabadhaasi maxaa ka dambeeya. gabar ahlu diina, gabar diin lama tahay, akhlaaqdeedu sidee tahay, ku dhaqankeedu diinka waa sidee, waxyaabahaas inaan laga fakirin. ninkii marka qurux keliya wax ku raadiya, hadda caruurta beri wixii ku yimaada ee diin xumo iyo tarbiya xumo ah waa aasaaskuu qalday ayaa qayb ka ah. tarbiya xumada marka halkaasay kasoo bilaabaysa. tarbiya wanaag haddii dhanka wanaagsan aad aado oo zawja saalixa aad dooratana tarbiyadii wanaagsaneed wey. wuxuuna nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fi xadiidin aakhar, wuxuu yidhahda addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa. adduunyadu waa mataac, waa nolol yaroo raaxa oo muddo lagu noolaado kadibna waa laga tegaya. laakiin nolosha adduunyada yaa u khayr badan? azawjatu saalixa u khayr badan. gabar wanaagsan, xaas wanaagsan ayaa ugu khayr badan buu yihi nabigu sala allahu alay slam, oo ugu wanaagsan wax la doorto. meeshaas marka waa meesha koowaad oo la rabo inaan tarbiyada wanaagsan ka bilowno. kow intaan la guursan ka hor in la sameeyo ikhtiyaar iyo doorasho wanaagsan. marka labaad waxaa tarbiyada ka mid ah caruurta tarbiyayntooda in ilaahay la weydiisto owlaad wanaagsan oo saalixiina, oo aadan dhihi keliya ilaahu ilma isii. caruurta qaar jiritaankooda waxaa ka khayr badan inaad ilaahay ku siinaa ka khayr badan. markii shartooda iyo dhibaatadooda iyo fasaadkooda keliya ay kugu soo noqoto wax khayr aysan kaaga imaan, oo ummadda u dhibaataynayo, oo dadka muslimiinta ah uu dhibayo, oo maalin walba dacwadiisa iyo xumaantiisa ay ku taagan tahay, waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu waalidku tamaniyo maryaa ku dhaafiya cunuga. kaasoo kale marka wax ilaahay la weydiista maahan subxaana wa tacaala. lidaalika saysan taa kugu dhicin, ducada ha ka ilaabin inaad ku darto owlaad wanaagsan ilaahay ku siiyo. sida uu nabiy llaahi zakariya calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaystay, habnii min ladunka duriyatan ayibatan, ilaahu waxaad ii hibaysaa oo agtaada aada iiga hibaysaa duriyatan, kuma gaabsan intaa, ayibatan wanaagsan, caruur wanaagsan ilaahu ii hibayo isii. waxay ka mid tahay tarbiyada wanaagsan in ilaahay subxaana wa tacaala aada weydiisato owlaad wanaagsan. waxaa ka mid a tarbiyada wanaagsan walaalayaal ee loo baahan yahay waalidiintu inay ku dadaalaan in owlaadda loo duceeyo. tii hore waxay ahayd in owlaad saalixiina ilaahay laga baryo. haddii ilaahay caruur ku siiyo, caruurtaada u duceeyo, ha habaarin. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam, ilaahow aniga iyo caruurtayda naga dheeray inaan asnaamta caabudnabo. naftiisana waa u duceeyey,
عرورتي سنو دعي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وأنا من صفات المؤمنين إن إلهي ويديستان عرورته إنه إلهي يغلق أولاد وناسا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. مؤمنين توقوا إلى إلهي ينوهبي وحاسسك إنه واحد نوغهبي ساهو نغسيسا عرور وناسا وأنكو القبوسا قرة أعين والقبوس هذا رأيت عنق إلهي كسية سبحانه وتعالى مسايك كعبه الرأي عبادة السنة كلامك إلهي برنا سبحانه وتعالى قرآنك كريمك معروفك وناق إن لفرك كعبه الرأي حمانت الله ريبه والقبوس ويقف والبو وناسا وكو القبوسني مركا نبينا صلى الله عليه وسلم وحنو قد إن عرورت الله حبار لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم هبارنا النفوس دينا عرورتنا هبارنا وعلى غير هبار كاسي إنه كسو آدو وقت إلهي سبحانه وتعالى وأجيبه أو عنق هبار كله والدين تئن بدل مركي حنقان عرورته وي هباران تربية حمدين كمتان وعليه عنق مركو غلط قالوا بلايا الله كوريو مركي بلايا كل عضنا هذا بلايا يقول غير فردا عنق مال لك آدم ما يعذب عليه حافظ هذه بكون نوليا مصيبة كو هبارتي مصيبة نقول لك وجدتها وحي تبع كذا شمرك هبار كاغا